dadka asal ahaan ka soo jeeda deegaanada Soomaalida waxay ahaayeen mid ka mid ah awoodihii boqortooyadii Kuush, waxayna ahaayeen dad leh aqoonta badaha iyo dhaqashada xoolaha nool. waxay u samaysnaayeen sida bulsho isugu jirta inay ka kala yimaadeen dhulal kala dabeecada, laakiin waxay ka sinaayeen mabaadi'da jiritaankooda iyo wada ilaashiga danahooda guud. waxaana ugu muhiimsanaa hantida ay nolol ahaan ku xisaabtamaan iyo badka dhulkooda oo ay mar walba adkayd in si fudud lagu gaaro ama lagu sahmiyo awoodda. caddaymaha qadiimiga ee la hayo waxay taageerayaan fikradda in dhulka xeebaha maanta ee Soomaaliya intiisa badan la dejiyay wax ka badan 100 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Huntingford oo ah taariikhyahan wax badan ka faallooday arrimaha bulshooyinka bariga Afrika ayaa ku dooday turjumaada Peoples of Erythraean Sea inuu yahay magac lagu garto dhulka Soomaalida. kelmaddaas oo Laatiina haddana waxay samaynaysaa tilmaanta micnaha badeed ee dhulka Geeska Afrika marka loo eego ama loo soo shareecanayo ama laga sii shareecanayo xeebaha Geeska Afrika. sidaa awgeed Huntingford waxa uu leeyahay 7 koorso dhammaan Tanzania waxaa lagu gartaa dhulka Soomaaliyeed min Xaafuun koonfur ilaa iyo kanaalka Siyo. tani waxay muujinaysaa in qaybo ka mid ah Soomaaliya ay caan ku ahaayeen la ganacsiga Roomaanka iyo Hindida waqtigaas joogtay. waayo kelmadaha uu taariikhyahanka adeegsaday wax badan waxay la xiriiraan ilbaxnimadii ganacsiga badeed ee boqortooyadii Roomaanka iyo dhul xeebeedkii Geeska Afrika. haddaba tuulooyin xeebeedkii hore ee Soomaalida waxay sidoo kale xiriir la sameeyeen ganacsatadii Carbeed ee ku safrayay badda cas iyo badweynta India. qarniyadii xigayna Soomaalidu waxay ka mid ahayd dadyowgii ugu horreeyay ee qaatay diinta Islaamka. Carabtu waxay didibada u taagtay magaalada Saylac oo ku taalla Geeska Afrika, gaar ahaan dhulka maanta loo yaqaano Soomaaliya. waxay noqotay xudunta ganacsiga ilaa qarnigii 17aad markaas oo ay xabashida Masiixiyiinta ku soo qaadi jireen weeraro ay ku gubayaan magaalada Saylac si ay uga barakiciyaan dadka Soomaalida ahaa ee ku noolaa halkaas. laakiin marka ay maalmo sii haystaan waxaa soo rogaal celin jiray Soomaalida oo jihaad adag kadib la wareegi jiray Saylac. ilaa iyo qarnigii 12aad xabashidu waxay lahayd riyo weyn oo la xidhiidhay inay ku haminayso hantinta ama inay hantiso magaalada Saylac iyo hareeraheeda. waxaana mar walba hamiga fashili jiray Soomaalida oo ahaa dad muslima, dhaqan iyo dabeecad ahaanna ahaa dad qallafsan ama la dhaqankoodu adag yahay, haddana marna aan jiritaankooda la jeclaysan jirin. qarniyadii dhexe samaynta qaabdhismeedka siyaasadeed ee reer qoysku waxa uu bilaabay qaabdhismeed weji cusub, waana markii qoysaskii faraha badnaa ee muslimiinta lagu dhibaateyn jiray meelo kale oo Carab ah ay si wada jira ugu soo qaxeen xuduudka Soomaaliya. qaybta koowaad intaa aan ku hakiyo waxaa noo ballanaa qaybta labaad insha Allah. kusoo dhawaada qaybtii labaad ee taxanaha barnaamijka taariikheed ee dadka Soomaalida iyo dhulkooda xeebaha. qarniyadii dhexe samaynta qaabdhismeedka siyaasadeed ee reer qoysku wuxuu bilaabay habdhismeed weji cusub. waa markii qoysaskii faraha badnaa ee muslimiinta lagu dhibaateyn jiray meelo badan oo kale oo Carabta ah ay si wada jira ugu soo qaxeen xuduudka Soomaaliya. Soomaalida qaninimadooda habqaraabaysiga ayaa waxay ka dhigtay kuwo awood leh. guurkii dadka deegaanka waxay ka soo dhex saareen xidhiidh dhaqaale oo faa'iido leh. intii lagu guda jiray 1300meeyadii caasimadii mustaqbalka u diyaarsanayd ee Muqdisho waxay caan ku noqotay magaca ah magaalada xisbiga ama muraayadii xeebta, waxayna ahaatay meel ay aad u jecel yihiin badmaaxinta Carbeed. Soomaaliya oo deegaan muslima ayaa qarniyo badan xiriir saaxiibtinimo la lahayd dalka ay dariska yihiin ee Masiixiga ee Ethiopia. inkasta oo jihaadku ka socday meel kasta oo dunida Carabta ka mid ah, haddana waqtigaas Soomaaliya waxa ay ballan qaaday inaanay weligood weerarin Ethiopia. xaqiiqda ah in Ethiopia ay leedahay qaar ka mid ah dhulalka dabiiciga caalamka ee badi u samaysan go'doonka buuraha ama qararka kala sarreeya ee ku kalifa bulshada dhulka noocaas degan inay isku soo fidiyaan qaybaha dhuleed ee siman ee weliba kulaalaya xeebaha ugu dhow markaas. arrinta awgeed
ayaanay noqon xabashida kuwa marna saamaxay inuu hergalo ballanqaadkii Soomaalida ee ahaa inaysan weerarin dalka la deriska ah. sidaas oo ay tahay Itoobiyaanku kuma soo dhiiran jirin Soomaalida iyaga oo kaligood duulaana ee waxay badi isku haleyn jireen wadamada Masiixiga ee markaa dunida awood ahaan ku leh saameyn weyn. markasta dowladaha shisheeye waxay u yaqaaneen Soomaalida dad gardarro badan oo si walba oo loo cadaadiyo aan u nuglaan rabitaanka awoodaha ajnabiga. nasiib darro sanadkii 1414 ayaa boqor Itoobiyaan ah oo faduul badnaa lana oran jiray Isxaaq Kow waxa uu si awooda ku yimi kursiga boqortooyadiisa wuxuuna markaa dagaal ku qaaday Soomaaliya iyo Jabuuti oo la derisa. ololihiisa waa lagu guuleystay boqorkii Soomaaliyeed ee lagu duulayna waa la dilay. boqor Isxaaq Itoobiya ayaa markaa guushiisii loo dabaaldegay waxayna fanaaniintii loogu jeclaa dhulka xabashida goortaas ay u sameeyeen heeso lagu ammaanayay boqor Isxaaq iyo guushiisii uu ka soo gaaray la dagaalankii Soomaalida. ma ahayn wax badi dhici jiray in xabashi ay guul heerkaas ka soo gaarto dagaal ay la gashay dad Soomaali ah, laakiin weerarka xabashida oo ahaa mid aanay Soomaalidu markaas filanayn ayaa sababay in Itoobiya dhexdeeda looga heeso magaca Soomaali oo lagu tilmaamayo mid guuldaraystay. ilaa waqtiyada Soomaalidu waxay ku hoos noolaayeen gumaysiga Itoobiya muddo qarni iyo wax ka badana. si kasta ha ahaatee laga bilaabo 1530 oo uu hogaaminayay Soomaalida Imaam Axmed Gurey Allaha u naxariiste ayay Soomaaliduna ka argoosteen Itoobiya waxaana bilaabatay dagaalka ama diiwaanka baal taariikh cusub oo ay dunidu ka wada marag noqotay. Axmed Gurey wuxuu ahaa hogaamiye muslim oo Soomaali ah oo iska caabiyay duulaankii Boortaqiiska iyo Xabashida ee isku soo baahistay dhowr duulaan oo ay rabeen inay ku gumeeyaan kuna gumaadaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool Geeska Afrika. inkastoo sahankeena taariikheed xilligan uusan ahayn kaliya mid aan kaga sheekaynayno taariikhda halgamahaas weyn, haddana waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobno aan ku soo dhex qaadanno mowduuceennan, waayo Gurey taariikhdiisu waa sheeko weyn oo wax ku biirinaya xiisaba u leh Afrika oo dhan, gaar ahaan inta ku nool bariga Afrika weliba ay ugu horeyso Soomaalida. haddaba soo ifbixii hogaamineed ee Gurey waxay Soomaalidu u yeeshay awood iyo karaamo xoog leh, waxayna xabashidii ama Itoobiyaankii ku noqotay ciqaab iyo waayo mugdi ah oo maalmahoodii farxadeed u rogay baroor iyo murugo aan dhammaan. Imaam Axmed Gurey waxa uu kaalin weyn ka qaatay in dalka Itoobiya 4 meelood 3 meel la hoos keeno boqortooyadii Soomaaliyeed ee Adal ee muslimiinta u badnayd intii u dhaxaysay 1529 ilaa 1543. waxaan noo ballanaa qaybta saddexaad ee taxanaha barnaamijkeena. ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda dadka Soomaalida iyo deegaanadooda xeebaha. inkastoo islaamku soo gaadhay Itoobiya qarnigii 7 haddana dad badan oo dhanka xabashida ma qaadan diinta islaamka. waxaase markaa dadka Itoobiya ay halis weyn u arkayeen awoodda Soomaalida ee sii xoogaysanaysay, waayo waxaa u sawirnaa in Soomaalidan wada muslimka ay wiiqi doonaan awoodda boqortooyadoodii ku tiirsanay diinta Masiixiga. laakiin Imaam Gurey Allah u naxariistay wuxuu saameyn ku yeeshay durbadiiba qabaa'ilkiisii Soomaalida reer guuraaga ahaa ee badidood ka soo tallaabay badda cas, si tartiib tartiib ahna ugu fiday gudaha bariga iyo koonfurta Itoobiya ee maanta jirta. haddana waxqabadkii Gurey ee kor u qaadidda qadiyadda Soomaalida wuxuu ahaa mid aan la soo koobi karin marka ay timaado iska caabinta duulaankii Boortaqiiska iyo xulafaysigii weynaa ee xabashida dhuldoonka ahayd. intii u dhaxaysay qarniyadii 14aad iyo 15aad markii uu islaamku caan ka noqday qaaradda Afrika, halkaas oo adoonsigu caadi ka ahaa quwado dhowra, ayaa waxaa soo baxay madax badan oo muslimiina oo awood leh, kuwaas oo su'aal ka keenay qaab dhismeedkii hore ee awoodda. boqortooyadii Kirishtaanka ahayd ee Itoobiya ayaa markiiba iska caabin kala kulantay madax badan oo muslimiina, kuwaas oo isku dayay inay maamulaan wadooyinka ganacsiga isku xidha deegaanada badda cas.
Guray waxa uu taariikhda ku galay inuu ahaa hogaamiye aad u fariid ah oo dagaal adag la galay boqortooyadii hore ee Xabashida iyo taageerayaasheedii ugu waaweynaa ee Boortaqiiska. Imaam Guray oo loo yaqaano guulaystaha muslimiinta dhexdooda waxa uu ka hor yimid dagaalyahano sida Gustavo da Gama oo uu dhalay sahmiyihii caanka ahaa ee Boortaqiiska ee loo yaqaanay Vasco da Gama. Markii Gustavo uu u yimid Geeska Afrika inuu taageero Lebna Dangal oo ahaa imbaradorkii Ethiopia oo xilligaasi la yeelay cabsi iyo murugo uu baday Imaam Guray ayaa waxay xaaladdu isku bedeshay in Soomaalidu isku diyaariyaan la dagaalanka laba boqortooyo oo xoog badan kuwaas oo kala ahaa boqortooyadii Boortaqiiska iyo tan Xabashida. iyadoo uu Soomaalida ku sii adkaanayo wacyiga dagaal ee horyaala ayaa waxaa soo xoogaystay taageerada gadaalka riixa ay boqortooyadii Cusmaaniyiinta Turkiga siinayeen Imaam Guray iyo Soomaalidiisii horkacayay. haddaba Guray waxa uu ahaa hogaamiye ciidan oo xirfad u lahaa naqshadaynta dagaalka, sidoo kale wuxuu ahaa imaam madax ka ahaa gobolka Adal oo uu ahaa generaal. magaciisa waxa uu ahaa Axmed ibnu Ibraahim al-Ghazi. Guray waxay ahayd naanaystiisa taas oo af Soomaaliga macnaheeduna yahay mid guran ama ah bidixle. Guray waxa uu ku dhashay magaalada Saylac oo ah magaalo dekeda oo ku taalla waqooyi galbeed ee Soomaaliya oo markaas noqotay qayb ka mid ah boqortooyadii Soomaalida ee Adal. ahaydna dowlad muslima oo ka mid ahayd boqortooyadii Sulaymaan. wuxuu guursaday Bati del Wambara oo uu dhalay Maxfuus oo ahaa guddoomiyaha Adal. Maxfuus waa la dilay markii uu ka soo laabtay olole militari oo ka dhana imbaradorkii Dangal 1517 isagoo u riixaya suldaanka Adal fowdo iyo kala qaybsanaan sanadaha xilligaa soo socday ahaa. 10 sano kadib Guray waxa uu gobolka ka hirgeliyay nidaam iyo kala dambeyn isagoo oo ku duulay Ethiopia sanadkii 1529 waxa uu si dhammaystiran ku dhiirigeliyay ciidamadiisii maadaama uu ahaa generaal ciidan oo aad u asluubaysan, si fiicanna u fahmay xeeladaha ciidamada Cusmaaniyiinta ee uu ka helayay taageerada. ciidankiisu waxay lahaayeen tiro aad u badan oo askar Turki ah, walow ay tirada ugu badan iyo xoogaga ugu weyn ee ciidankiisuba ay ahaayeen Soomaali. sanadkii 1531 Guray waxa uu ku guulaystay inuu jabiyo wejigii ugu dambeeyay ee imbaradorkii Dangal ee iska caabinta ku hayay, isagoo oo sameeyay horumar dheeraada. bishii Oktoobar waxa uu Guray galay gobolka Tigray isagoo jabiyay ciidamadii Dangal ee haray. laakiin dagaalku wuxuu socday ilaa 1543 sababtoo ah boqortooyadii Boortaqiiska waxay ciidamadeedii u dirtay dekada Masawa Febraayo 1541 markii imbaradorkii Gladwas uu qabtay kursiga kadib dilkii Dangal. ciidamada Boortaqiisku waxa hogaaminayay Da Gama kuwaas oo si foolka foola ula kulmay Imaam Guray bishii Abriil 1542. shirkaas ayaan wax waana ama natiija laga keenin, iyadoo Da Gama uu ciidamadiisa durbadiiba soo abaabulay oo u kacay ugu dambeyn dhanka ciidankii Guray si ugu qaado dagaalka madambaysa. dhagayste la soco qaybta afraad.